السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح ونعكس صباح الخير. waxaa saaxiibadana qiimaha badan ee ku xidhan barteena Facebook Cabdalla Xuseen iyo sokala YouTube keena Cabdalla Deeqsi. waxaa saa ka idin haynaa arrinta Safiya Tusmo iyo Cabdi Ciise oo in badan soo jiitamaysay qabsateena baraha bulshada bilihii la soo dhaafay, taas oo noqotay arrinta ugu wadahalinta badneed bishii aan soo dhaafnay isoo kale bishii aan ku jirnaba. ugu dambeyntii isqabqabsi iyo buuq badan kadib waxa arrintii ay u tahay mid iminka soo dhamaanaysa ama soo gabagabaysa. sababtuna waxay tahay waxa soo dhex galay odayaashii labada family kuwii Cabdi Ciise iyo kuwii Safiya Tusmo ka soo jeeday, kuwaas oo codsaday in lagu dhameeyo wada hadal iyo arrintii odayaasha ee hidiyo dhaqanka ay u lahayd Soomaalidu tan iyo intii aanan la soo saarin maxkamadaha iyo rafcaanka iyo ka dabareega la dabareegayo. arrintan ayay odayaasha codsadeen in la gacanta loo saaro oo ay iyagu ka taliyaan. ugu dambeyntii odayaasha waa ay kulmeen shalay toole waxayna ku heshiiyeen ehelka Safiya Tusmo iyo ehelka Cabdi Ciise Ajuun inay xalka ku dhameeyeen gacantooda iyo isku imashadooda, balse shuruud ayay soo dhigeen odayaasha ka soo jeeda beesha Safiya Tusmo. shuruudana waxa u dhignay sidatan: kow, in Safiya Tusmo wixii ku dhacay laga bixiyo raali gelin, iyo inuu Cabdi Ciise qirto inuu isagu geystay dambiyadan oo ay ahaa kuwa ka dambeeyay, maadaama oo laga helay hadallo badan oo isdaaf ah. hawna sheego inuu isagu qabay gabadhan oo ahayd marwadiisa dhabta ah, maadaama oo la helay cadaymo dhaba iyo xitaa qaadigii meheriyayntaba, iyo inay xaalkii ay hablaha Soomaaliyeed lahaan jireen bixiyaan qoyska oo ka soo jeeda Cabdi Ciise Ajuun, iyo inay Safiya Tusmo wixii ku dhacay ee baraha bulshada ka soo gaaray ama dadka shacabka ka soo gaarina hay la soo fadhiistaan baraha bulshada ama social media oo yiraahdaan waan ka raali gelinaynaa annagana khaladka iyo dhibkaas oo dhan geysanay. arrintaas oo shuruudo adag run ahaantii noqotay ayay soo bandhigeen odayaasha ay ka soo jeedo Safiya Tusmo ama beesheeda Safiya Tusmo. taasna waxay noqotay shuruud adag oo lahayn dhinac loo dhaafo marka loo eego dhaqanka Soomaalida, balse waxay qabsadeen bal dambe isku soo noqonayaan. arrintan waxay noqotay mid social media si weyn ugu baahday, dad badan ay ka falceliyeen, balse hay dad badan sida xun ama si qaldan u turjumeen. waxaanu leenahay dadkii si xun qaldan u turjumay ama ka helay views iyo wax lamid ah ka raadinayay, wad qaldamayeen, waana qaldantiin, dib dambe wax views uga helaysaan halkaas waa u dhamaaday. Cabdi Ciise iyo Safiya Tusmo dad ay ka dhasheen dadkoodii ayaa dib u xaalisanaya. arrintaasina halkaas ay ku dhamaatay ee ka qoosta. runtu waa taas ayaan si ka idin wadnaa, aan idin la wadaagaynay. wad mahadsantii saaxiib, balse daawadayaal inta muuqaalka dhameysay waxaan ku xasuusinayaa inay muhiim tahay inaad muuqaalka like saarto una share gareyso saaxiibada dadka kale ee Facebook. wad ku mahadsan tahay la jaanqaadkaaga iyo soo quruxda badan ee nolol joogto waqti walba iyo mar walba iyo saad noo dhiirigelisay.